السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقالكن waxaan kugula wadaagayaa kitaab ka qiimo badan maal kasta oo adduunyo. Kitaab ku saabsan kala garashada, kala saaridda, kala soocidda aayadaha mutashaabihaadka Quraanka Kariimka lafdi ahaan maaha dhinaca macnaha ama tafsiirka. Kitaab lagu tilmaamo inuu yahay mid kamida kuwa ugu fiican ee laga qoray qawaacidda mutashaabihaadka Quraanka Kariimka. Kitaabkan waxaa alifay Sheikh Fawaaz bin Sa'ad bin Abdurrahman Al-Hunayn. هذا سلمك الله كتاب حافل وجميل، وهو من أقعد ما كتب في الباب. صاحبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ فواز بن سعد بن عبد الرحمن الحنين وفقه الله، أراد بهذا الكتاب الجميل اللطيف. هو بدايته كان ولدي صغير بدأ يطور في القواعد حتى اجتمعت عنده 26 قاعدة وجمعها في هذا الكتاب الذي سماه الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن المجيد. هذا الكتاب في هذه النسخة المطورة الكبيرة، وهو آخر إصدار له، طبعا قدم له مجموعة من المقرئين المعروفين المشهورين وفقهم الله. أخرج بطريقة ممتازة جدا. أراد طبعا متشابه اللفظي، الألفاظ متشابهة في السور القرآنية، كيف يضبطها الحافظ عشان مرة هنا كذا ومرة هنا كذا؟ طب كيف يضبطها؟ أتى بقواعد معينة. ليس مثلا سر، هو يقول أهم شيء التكرار والحفظ. شوف لاحظ ولدي، هو يضع القاعدة بهذه الطريقة، شوفها إن شاء الله يبان للإخوة. هذه القاعدة، شوف رقم 12 الضبط بكذا، هذا عنوانها. يذكر لك القاعدة هنا شوف محبرة، ثم يذكر الأمثلة، أول مثال الثاني، مثال الثالث، الرابع، الخامس، وبهذه الطريقة حتى ينتهي. لما انتهى من الكتاب قامت أخت فاضلة وهي الأستاذة الشاعرة أمل بنت علي الشيخ وفقها الله، شوف كما ترون، ونظمت كامل الكتاب، سمته منظومة النضيد في الضبط بالتقعيد، ونظمت الكتاب كاملا وفق الله كما ترى، وفقهم الله جميعا. والكتاب جميل جدا من إصدارات مكتبة المتنبي. كوبان 22 قاعدة oo muhiim ah oo mid kasta oo mid kale aysan ka yareysan faa'iidada ku jirta. aniga shakhsi ahaan kitaabkan ilaa 7 qaacido kamid ah waan soo duubay kanaalkan waan soo galiyay, waana jeclaa inaan dhameystiro 22 qaacidaba, laakiin duruufo jira awgood iyo waqtiga ciriiri ah waxa ii suura gali weydina kitaabkan dhameystiro. balse waxaan idin wadaagi doonaa linkiga aad kala soo degi karto kitaabkan PDF ahaan. qofkii awoodi kara inuu helo kitaabkan maktabadaha ka helana ha raadsado, ama online ka dalbo ama maktabad ka raadso, ama ugu yaraan PDF linkiga kula wadaagay la soo deg. waa kitaab aad uga faa'iidi doonto kala saaridda quraanka mutashaabihaadka lafdi ahaan. kitaab kaga muhiimsan intaanu kitaab arkayay xagga qawaacid ahaan ma garanayo, idinkuna waa ila arki doontaan insha Allah. kitaabka laga faa'iideysto kitaabka la yiraahdo الضبط بالتقعيد للمتشابه اللفظي في القرآن المجيد. waa kitaabka magaciisa linkigana waan kula wadaagaya hoos ayaad ka heli doontaa insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.